waxa uu ku bilaabanayaa filimku gabadh la yiraahdo Tara oo dhanka fariimaha kala sheekaysanaysa mid kamid ah saaxiibadeed oo la yiraahdo Amber iyada oo la sheekaysanaysa ayaa waxa uu soo dhacaya telefoonka guriga way diidaysaa in ay telefoonka qabato balse markii uu muddo dheer u dhacay ayay ka qabatay waxaana la hadlay nin waxa uu weydiiyay guriga in ay joogto hooyadeed maya ay ku leedahay kadib ayuu weydiinayaa filimada ay daawashadeeda jeceshahay waxa uu ku leeyahay anigu waxa aan jecelahay filimada cabsida ah waxaana ugu jecelahay filimka ka sheekeynaya gabadha yarta ah ee guriga joogta ee kaligeed ah ee ninku telefoonka inta ka soo waco kadibna uu dilayo kadibna waxa uu ugu yeerayaa magaceeda aad ay u argagaxaysaa wayna ku jaraysaa telefoonka guriga ayay checking garaynaysaa kadibna qalabka albaabada dhan xira ayay batoonkiisa taabanaysaa si ay guriga dhan u xirto saaxiibteed Amber ayay la hadlaysaa waxayna u qoraysaa fariin ay leedahay waxa ay soo wacay nin maskaxiyan u xanuunsan kadibna Amber lambarkeedii ayaa looga soo qorayaa fariin ah iga qaba telefoonka hadii kale saaxiibta waan dilayaa waxay wacaysaa saaxiibteed Amber waxaana ka qabanaya ninkii ay ka baqaysay waxa uuna ku leeyahay saddex su'aalayaan ku weydiinaya hadii aad ka jawaabto saaxiibta way badbaadaysaa waana su'aalo ku saabsan filimada oo la weydiinayo dadka matalaya waxay ku matalayaan iyo magacyadooda way ka aqbalaysaa laba su'aalood ayay saxaysaa su'aashii ugu dambeysana way khaldaysaa kadib ayuu ku leeyahay saaxiibta hadda ayaan dilayaa way naxaysaa waxayna isku dayaysaa in ay guriga saaxiibteed u qayla dhaamiso albaabka ay furaysaa waxaana uga soo boodaya dilaagii oo xiran maskarati waxa uuna ka dhaawacaya caloosheeda xoog ayay gadaal ugu boodaysaa albaabka ana ayay hoosta ka xiraysaa nidaamkii guriga albaabadiisa xiraya ayaa u shaqayn waayay oo marna isxiraya marna isfuraya ugu dambeyn ayuu nidaamkii u wada xiray albaabadii oo dhan wuu soo wacay waxa uuna u sheegay inuu guriga soo galay markii albaabadu furnaayeen gadaasheedana ayuu uga imaanayaa waxa uuna galgalinayaa dhowr mindiyood wax isku dayday inay difacdo naf hase ahaatee waxa uu ka jabiyay lugteeda kadibna waxaan arkaynaa Tara walaasheed ka weyn oo Sam la yiraahdo oo joogta magaalo kale kana shaqaysata halkaas lana nool saaxiibkeed isna Rich la yiraahdo waxa uu soo dhacaya telefoon waxaana loo sheegayaa in walaasheed la soo weeraray lana gaarsiiyay dhaawacyo hadda lagu dabiibayo isbitaal waxay go'aansanaysaa in magaaladii walaasheed deganay dib ugu laabato si degdeg ah Rich ayaa isna le waan ku raacaya way ka diidaysaa ugu dambeynna way ka yeelaysaa waxaan arkaynaa saaxiibkii Tara oo la hadlaya asxaabteedii oo ku leh ugana warramaya wixii ku dhacay Tara waxa uu sheegayaa inay iska ilaaliyaan dilaagan soo baxay kana digtoonaadaan hooyadiisna waa askariyad caan ka ah magaalada markaas ay leeyihiin Tara way iska difaacday ninkii markaas ayaa saaxiibkeed ugu jawaabaya in keena aan ku booqano isbitaalka waxaana raacaya Amber iyo Mandy iyo saaxiibtood kale balse saaxiibadeed kale way diiday in ay u raacdo isbitaalka dhanka kale waxaan arkaynaa Rich iyo Sam oo safar u soo magaaladii walaasheed joogtay waxayna uga sheekeynaysaa saaxiibkeed Rich magaaladan in uu joogi jiray dilaal oran jiray Belly Lomis uuna laayay asxaabtiisii oo dhan oo gaaraysay 15 qof waxaana 10kii sanaba magaaladan ka soo baxay dilaa xiran maskarati oo dadka laaya waxay u imaanaysaa Sam isbitaalkii walaasheed ku jirtay waxayna kala kulmaysaa asxaabtii walaasheed oo meesha ku dhan waxay salaamaysaa walaasheed xaalkeedana ka wareysanaysaa dhamaantoodna way ka baxayaan xitaa Richkii la socday si ay labadoodu waqti ay ku wada hadlaan u helaan Tara ayaa u sheegaysa walaasheed Sam in ay u caad u cabsanayso Sam ayaa ugu jawaabaysa in ay garabkeeda joogi doonto kana difaaci doonto cadawga saaxiibadii Tara ayaa iswareysanaya Amber ayaa waxay eedayn u soo jeedinaysaa Sam oo ah Tara walaasheed ka weyn waxay leedahay walaasheed waxay ka maqnayd muddo sanooyin badan ah lamana aysan soo xiriiri jirin khilaaf ayaana kala dhaxeeyay waxa difaacaya Sam Tara saaxiibkeed oo waxa uu leeyahay Sam markii ay tagisay waxa la soo darsay duruufo nafsiyadeed si ay nafis u hesho ayayna uga tagtay walaasheed dibna ma ahan ayaga oo wada hadlaya ayaa waxa uu soo galay nin waxa uu nafuudeeyay gabar kamid ah gabdhihii meesha joogay meeshii oo rabsha ka dhici rabto ayaa naagtii meherada iska lahayd ninkii meesha ka ceyrisay ninkii fawdeynay asxaabtii Tara ayaa waxa uu dareemayaa in qof daba socdo kadibna dilaagii maskaratiga xirnaa ayaa gadaal uga imaanaya waxa uu galgalinayaa mindi bartaas ayuu isaga oo meed ah uga tagaya halkaasna waxaan ka ogaanaynaa dilaagu inuu ka mid yahay saaxiibada Tara Sam oo ku jirta qaybta restaurantiga oo isticmaalaysa qasabad ayaa waxay sawiranaysaa dilaagii Belly Lomis oo la hadlaya waa dilaagii ay uga sheekeynaysaa saaxiibkeed Rich khiyaalkeedii ayaa waxa ka kala jaray wicitaan uga yimid lambarka Amber oo ahayd saaxiibada walaasheed markii ay qabatayna waxa la hadlay dilaagii walnaa waxa uuna ku yiri gabadha walaasha ah waxaan u dilay in aad ku soo laabatid magaalada si aan adigana ku dilo markaas ay ku leedahay magaalada waan joogaa ee hadii aad idili kartid idil si kadis ayaa dilaagii uga soo baxay gadaasheeda waxa uuna isku dayay in uu dilo ugu dambeynna waxay ku guuleysanaysaa in ay ka soo cararto waxay u imaanaysaa askarigii isbitaalka ilaalinayay waxayna ka codsanaysaa in uu ka badbaadiyo dilaagan markii uu baaritaan ku sameeyay meeshiina mise dilaagii mar hore ayuu ka cararay maqaaxidii cuntada
kadib waxaa imaanaysa askariyadii sargaalada ahayd waxayna isku dayaysaa in ay weerarka baaritaan ku samayso waxayna waraysi ku bilaabaysaa Amber oo lambarkeedu uu adeegsaday dilaagu sidoo kalena waxay waraysi ku bilaabaysaa isna Rich oo ahaa kii la socday Sam oo maqnaa inta uu dhacayay weerarku waayo isagu waxa uu la socday Sam weerarku markuu dhacayna ma joogin labadaas ayay ka shakiday kadibna war sugan way ka waayaysaa labadoodaba mid kasta oo labadan kamid ahna kan kale ayuu ku sheegay in uu yahay dilaaga askariyadii ayaa waxay gaar u la baxaysaa Sam waxayna ku leedahay mushkilada oo dhan adiga ayaa sabab u ah way barigeedii hore waxay ku garanaysaa mushkilada mindha lagu soo qabtay waxayna leedahay kaxayso saaxiibka Rich magaaladana isaga baxa Sam ayaa waxay u soo galaysaa walaashay Tara waxayna uga sheekeynaysaa sir ay weligeed ka qarinaysay waxay u sheegtay in iyada oo yar ay ka akhrisay buug ay hooyadeed lahayd oo xusuus qor ah ayna ku aragtay in uusan aabahood ahayn ninkii ay la soo koreen ee weligeed u haysteen aabahood inuu yahay aabahood dhabtaana uu yahay dilaagii Belly Loomis hooyadeena aysan aabaheen jeclayn maadaama uu dilaa ahaa inkastoo ay u qaaday haddana waxay guursatay ninka aad u maleynaysay in uu aabaheen yahay aniga oo hooyo warkaas ku cadeynaya ayaa soo waxa gadaashida taagnaa odaygii aabaheen ahaa oo aan u maleyn jirnay inuu aabaheen yahay markaas ayuu imtixaanaaqay dib u laabtay nolosheenii oo dhan isaga baxay maadaama aan mushkiladaas hooyo u keenay oo u sababay waxay hooyo iga codsatay inaanan warkaan adiga kuu sheegin aabahaaga dhabta ah waa dilaa Belly Loomis ayaana la yiraahdaa si aan adiga warkaa kaaga qariyana ayaa igu kaliftay in aan magaaladan uga guuro Tara filan waa ay ku noqotay warkaani waxayna ku leedahay iga tag wajigaagana iga qari markii ay sidaas uga baxday qolkii walaashid ku jirtay ayaa waxay isku dhacayaan Rich oo albaabka taagnaa wayna ku naxaysaa waxa uu maqlay wixii ayada iyo walaashid ku sheekaysanayeen waxayna ku leedahay waana dhageysanaysay Soomaha waana ogaatay in aabaheen uu ahaa dilaa markaas ayuu ku leeyahay muhiim ima ahan waxa uu aabaha ahaa ee adiga ayaa muhiim ii ah garabkaaga ayaana joogaya waana ku caawinaya waxay u tagayaan iyada iyo Rich dambi baare hore oo shaqada dambi baarista ka fariistay oo magaciisa la yiraahdo Dewey sidoo kalena horey u dilayaasha wajiga maskaraatiga ku xirta oo gaaraya ilaa 4 dilaa Sam ayaa uga sheekeynaysa dhacdadan iyo rafaadka ay ku sugan yihiin waxa uu ka codsanaysaa in uu ka caawiyo dhibaatadan taagan waxa uu kula talinayaa oo uu ku leeyahay ha ku kalsoonaan cidna si kastaba ha kugu dhawaado dilaaguna idin kama dheero oo saaxiibada ayuu kamid yahay sidoo kalena dhanka jacaylka yaan lagaga faa'iideysan oo saaxiibka ayuu noqon karaa dilaagu wuxuu noqon karaa ninkan hadda kula socda isla markiina guriga ayuu ka soo saaraya oo waqti idin ma haya ayuu ku leeyahay dambi baaruhu waxa uu wacayaa gabar la yiraahdo Sydney oo uu horey uga badbaadiyay dilaa maskaraati xiran oo 25 sano ka hor ahaa waxa uu ku leeyahay waxa soo baxay dilaa xiran maskaraati waxa uu ka codsanayaa inaysan ku soo laaban magaalada sidoo kale waxa uu fariin u dirayaa saaxiibtiis hore oo ay kala tageen macna xaaskiisa ahaan jirtay oo ay noqotay saxafiyad warbaahintan ku dhex jirtay waxa uu ka codsanayaa inaysan magaalada ku soo laaban maadaama uu soo baxay dilaa ayuu leeyahay kadibna waxa uu soo qaadanayaa qalabkiisa waxa uu soo aadayaa Sam iyo saaxiibadii Tara waxa uu doonayaa inuu caawiyo oo kashfo dilaaga ku dhex jira Sam ayaa hadalka bilaabaysa oo sheegaysa in aabaheedu uu ahaa dilaa magaciisana la oran jiray Belly Loomis gabadhan oo asxaabta kamid ah ayaa tiri dilaagu waxa uu daawaday filimka dhaawaca mindida waxa uu doonayaa inuu sameeyo qiso ka khatarsan filimkaas oo anaga ayuuba doonayaa inuu qiso naga sameeyo kadibna waxay isugu sheekeynayaan maadaama Sam dilaa dhalay in iyaduba tahay cidda dilkan iyo waxan ka dambaysa Sam ayaa xanaaqaysa wayna ka soo baxaysa saaxiibadii Tara oo sheekaysanaya sargaaladii Lois ayaa doonaysa in ay alaabo soo iibsato guriga waxay uga tagaysaa wiilkeeda oo ahaa saaxiibadii Tara yani saaxiibkii Tara gaarigeedii ayay suuqa u qaadatay inta ay sii socotay waxa soo wacay lambar aan la garanayn markii ay qabatayna waaba dilaagii waxa uu u sheegay inuu wiilkeedu guriga kaligiis joogo una dili doono aad ay u naxaysaa waxay wacaysaa wiilkeeda teleefankana uu ka qaban waayay maadaama uu qubaysanayay waxay isku dayaysaa inay si dhaqso badan guriga ku timaado markii ay guriga sidaas u timaado ay albaabka marayso dilaaga ayaa ku soo baxaya oo ku dilaya mindi markii uu wiilkiina ka soo baxay suuliga dilaagii ayaa gadaal uga imaanaya oo isna dilaya kadibna dhacdadii waxa la kulmaya Sam oo arkaysa baaritaanka guriga hortiisa laga wado waxayna si kadis ugu arkaysaa saxafiyadii hore ee Dewey ay saaxiibada ahaan jireen oo ku soo laabatay magaalada sidoo kale sargaaladan oo la dilay oo is yaqaaneen u timid balse ay la kulantay dhacdadii dilkeeda way isbaranayaan kadib ayaa waxay arkaysaa saxafiyadu saaxiibkeedii hore Dewey oo meesha yimid kadibna waxay ku canaananaysaa maxaa dilaagan wax uga qaban weyday isna waxa uu sheegayaa in shaqadii laga fariisiyay maadaama uu gaaray waqtigii retirementiga ee qofku shaqada mamnuuc ka ahaa inuu ka shaqeeyo kadib ayay sheekaysanayaan dibna u xasuusanayaan xiriirkoodii hore
Sam Rich ayay wacaysaa weysiinaysaana dhacdada iyada oo la hadlaysa ayay arkaysaa askarigii loogu talagalay inuu walaasheed ku ilaaliyo isbitaalka oo meesha jooga intay u tagto ayay canaananaysaa una sheegaysaa walaasheed inay khatar ku jirto si degdeg ah ayay gaariga u fuulaysaa markaas ayaa waxa ka daba imaanaya Duwo isna raba inuu caawiyo waxa uu leeyahay dhaqso intuusan dilaagu dilin gabadha Tara oo ku jirta sariirtii isbitaalka kadibna codad ay ka shakitay ayay maqlaysaa aad ayayna u cabsanaysaa waxay isku dayaysaa in ay korto gaarigii loogu talagalay in ay ku socoto markii ay ka soo baxdo qolka ay ku jirtay waxay arkaysaa in la damiyay dhammaan nalalkii isbitaalka waxay imaanaysaa meeshii ay joogeen ilaaliyayaasha isbitaalka mise waxaaba la dilay askarigii halkaa joogay waana la qaatay hubkiisii waxay galaysaa qol oo ay ku dhuumanaysaa kadibna waxa uu soo galaya Richie way ku naxaysaa oo waxayba ku tuuraysaa waxay gacanta ku wadatay markaas uu dajinaya oo leeyahay Sam ayaa hadda ila soo hadashay oo ay tiri gaar gabadhii kadib dilaagii ayaa gadaal Rich uga imaanaya oo weeraraya dhaawac yar ayuu gaarsiinayaa kadibna wuxuu waayaa miyirka dilaaga gabadha gadaasheeda ayuu socdaa oo wuxuu ku raaxaysanayaa cabsideeda Sam ayaa soo wacaysa Rich markaas ayaa waxa ka qabanaya dilaaga waxa uu maqashiinayaa qaylada walaasheed Sam markii ay ula hadashay Sam dilaaga ayaa albaabka isbitaalku furmaya xabad ayuuna Duwo ku bilaabaya dilaagii dhinac ayuuna u cararaya dilaagu kadib Sam walaasheed ay fiirinaysaa Duwana Rich ayuu kicinayaa dilaagi ayaa isku dayay in uu Duwo mindi galiyo kadibna xabad ayuu ku tuurayaa wuuna la waayaa Sam iyo Rich gabadhii dhaawaca ahayd ee Tara ayuu Duwo waxa uu keenayaa wiishka isbitaalka waxa uu leeyahay anigu dilaaga ayaan soo afjarayaa ee carara oo meel amaan ah taga Duwo waxa uu ku soo laabanayaa meeshii ay isku circirsanayeen kadib lambar ayaa soo wacay Duwo isagoo oo labaysan ma lambarkaad qabataa mise ilaalaad gashaa asagoo ku jira ayaa dilaagi si kadis ah weerar ugu qaadaya bartii ayuuna ku dilayaa waxa la gaarayaa maalinta xigtay waxaana arkaynaa magaaladii oo ku mashquulsan dilkii Duwo xaaskii hore ee Duwo ayaa arkaysa meedkiisii oo laga soo saarayo isbitaalka weyna qaracmaysa waana la celcelinaya Sydney ayaa iyana magaalada ku soo laabanaysa markii ay maqasho saaxiibkeedii yaraanteedii badbaadiyay dhimashadiisa ayuu imaanaysa xaaskiisii hore ee saaxiibtii Sydney ayaa isku tacsiyeynaya isla markaas waxaan arkaynaa Sam iyo walaasheed Tara oo isla jooga way heshiinayaan waxayna go'aansanayaan in ay isaga tagaan magaaladan Sam iyo Tara oo soo socda ayaa waxa ka hor imaanaya Sydney waxayna u sheegaysaa in iyada iyo xaaskii hore ee Duwo ay doonayaan in ay u soo argudaan Duwo ee garabna siiya ay ku tiri markaas ay Sam u sheegtay in ay doonayaan in ay ka cararaan dilaagan si ay u badbaadiso nolosheeda iyo nolosha walaasheed Sydney ayaa waxay gaariga Sam ku xirtay GPS kaasoo ay rabto inay ka ogaato meesha ay tagayaan waayo waxay ogtahay Sydney in dilaagu daba dhiganayo labadan gabdhood doonayaan in uu dilo halkaasna ku ogaan karaan cidda dhabta ah ee ka dambaysa falalkan dhacay oo dhan Rich oo gaariga ku wada ayaan arkaynaa Sam iyo Tara welibana safar ah waxay doonayaan inay magaalada ka tagaan Tara ayaa waxay soo xasuusatay gurigii saaxiibteed Amber in ay ku soo ilowday dawadeedii muhiimka ahayd in ay tahayna khasab ay tahayna ka soo qaadato Rich ayaa gaariga soo kaxaynaya guriga Amber waxaan arkaynaa Amber gurigeedii oo ay joogaan asxaabteedii oo dhan waxaan arkaynaa Amber oo cabitaana ka soo saaraysa talaagadeedii una qaybinaysa asxaabteeda waxaan arkaynaa mindi oo hortaagan Amber mid kastana uu ku faanayo inuu isagu yahay dilaaga yacni in laga baqo camal Tash oo kamid ah saaxiibadan ayaa waxa ka xanaaqaya saaxiibtiis banaanka ayana u soo baxaysa isagoo oo raadinayana isticmaalayana GPS telefoonka ku xiran si uu u ogaado halka ay joogto ayaa waxa gadaal uga imaanaya dilaagi wuuna dhaawacaya wuxuu isku dayayaa inuu baxsado isagoo dhaawaca balse dhulka ayuu ku dhacaya dilaagi ayaa u imaanaya bartaas ayuuna ku dhameystiraya waxaan arkaynaa Rich Sam iyo Tara oo soo galaya gurigii Amber dhamaantoodna ay doonayaan in ay raadiyaan dawadii Tara Amber ayaa ka hor imaanaysa waxayna ka codsanayaan in dawada ay u keento waxayna u keenaysaa dawadii Sydney iyo xaaskii hore ee Duwo ayaa ogaanaya gaariga Sam inuu joogo gurigii Amber sida darteed Sydney waxay wacaysaa Sam waxayna u sheegaysaa in guriga ay joogaan uu yahay gurigii hore ee uu dilaa Belly Loomis asxaabtiisa ku laayay khatarna ay ku jiraan dhammaan in dilaagu laayo sida ugu dhaqsaha badanna uga soo carara ay leedahay sidoo kale waxaan arkaynaa Mindy oo daawanaysa telefishinka waxay kadibna waxa gadaasheeda ka soo muuqanaya dilaagii waxa uu galgelinaya Mindy Sam ayaa maqlaysa qaylada Mindy wayna aadaysaa waxayna dilaagii ku tuuraysaa shay ay gacanta ku wadatay dilaagii ayaa meesha ayuu ka cararaya Sam oo dul joogta Mindy kana naxsan xaalkeeda ayaa waxa meesha isugu soo ururaya saaxiibadii Amber ayaa waxay ku tuhmaysaa dilaagu inuu yahay Sam waxaana soo galaya Leaf oo ahaa saaxiibkii Tash ki dhintay macnaha saaxiibtiis iyo Rich mid kastana kan kale ayuu ku leeyahay waa adiga dilaagu isla ilbiriqsigaas ayaa Amber waxay la soo baxaysaa bistooladeedii waxayna dilaysaa Tash ki dhintay saaxiibtiis waxayna leedahay waa aniga dilaagu Amber ayaa waxay isku dayaysaa in ay disho Sam balse Tara ayaa khalkhalinaysa waxaana soo baxaysa dilaayadu in aysan Amber oo kaliya ahayn dilaag kalena uu jiro Sam ayaa waxay ka shakinaysaa Rich waxayna ula baxaysaa Mindy waxayna ku leedahay waan ka shakiyay markaas ayuu wuxuu ku leeyahay aniga ma ahan dilaaga waxaan uga shakisanahay inuu yahay walaasha Tara
hadda waa gabadha dilaagu dhaawacay ee uu markastana weeraro. Sam ayaa ka baxaysa halka uu joogo waxayna raadinaysaa walaasheed. waxaad arkaysaa Sydney iyo xaaskii duwe oo gurigii soo gaaray. Markaas ayaa waxaa ku soo baxaysa Amber oo caloosha haysata oo leh waa la idilay badbaadiya. isla markiina Amber bistoolad ay la soo baxaysa iyagoon ka filanayn. Caloosha ayayna uga dhufanaysaa Jill oo ah xaaskii hore ee duwe. Sydney ayaa dabcaysa inay caawiso Jill balse waxay leedahay waxba ay caawina gudaha gal oo soo dildilaaga. Waxaan arkaynaa Sydney oo xabado ku dhufanaysa albaabada xiran. Sidoo kale Sam waxay helaysaa walaasheed oo xirxiran. Sydney oo albaabada xabad ku dhufanaysa ayaa albaab xabad ku dhufatay. Kadibna qof baa ka qayliyay. Haddii ay furtay mise waa Rich waxa uu leeyahay dilaagi ayaa meesha uga dhuumanaya yahay dilin. Kadibna wax yar kadib dilaagi Amber ahaa oo xiran maskaraatiga ayaa Sydney gadaal uga yimid. Intay is haysteen ayaa waxay ka soo dhaceen jaranjaradii kore. Sam ayaa waxay gacanta ku dhigtay bistoolad ka soo dhacday iyaga. Rich ayaa waxa uu ku soo deganayaa jaranjaradii isaga oo dhaawacan. Waxa uu istaagayaa Sam garabkeeda. Waxa uu gelinayaa mindi. Waxa uu ka qaadayaa bistooladii. Waxa uu u sheegayaa in uu yahay dilaaga labaad ee asxaabtan ku dhex jiray. Amber iyo Rich oo ah labada dilaa ee asxaabtan ku dhex jiray ayaa Sydney, Sam iyo Jill waxay isugu keenayaan hal qol iyaga oo ku jeesjeesaya oo leh dhamaantiin waan idin khiyaamaynay waana soo saari kari weydeen waan idin laynaynaa. Iyaga oo hadlaya ayaa Sydney waxay isku dayaysaa in ay Amber ka qaado mindida balse iyada ayaa mindidii lagu dhaawacaya. Amber ayaa banaanka u baxaysa iyada oo raadinaysa saaxiibteed Tara si ay u disho balse Tara ayaa uga soo boodaysa meel aysan ka filanayn waxayna ku garaacaysaa birihi gacanteeda. Samna waxay ku soo boodaysaa Rich waxayna ku tuuraysaa dhulka. Amber ayaa iyaduna kacaysa oo waxay arkaysaa Sydney oo bistoolad ku soo fiiqaysa. way baryaysaa xabad ayaana lagala daalaya waxayna ku gubanaysaa gaaskii yaalay jikada. Rich ayaa Sam waxa uu ku qabtay bistoolad isaga oo ku diganaya yaa mindi uusan u jeedin waxay ka gelisay dhuunta bartii ayayna ku dishay. iyaga oo barti taagan ayaa Amber oo mindi wada gadaal uga timid balse Tara ayaa badbaadisay dadkii oo xabad la dhacday. Ugu dambeyn waxaan arkaynaa baaris lagu sameynayo gurigii iyo siday wax u dhaceen. Samna waxay u tagaysaa Sydney waxayna uga mahadcelinaysaa siday u caawiyeen waxayna Sam ambulance la raacaysaa walaasheed Tara. filimkiina sidaas ayuu ku dhamaaday. maxaad sugaysaan muuqaalka like inoo saar inoo sii share garee 5 qof ilaa 6 qof 10 qof la wadaag waxa weeyaan waqti iyo dadaal ba ku baxay waana soo badin doonaa insha Allah la socod wanaagsan. waa Cabdullaahi Case oo idin rajeynaya waqti qurux badan iyo nolol qurux badan.